السلام عليكم داود الكسو دوادا مدكمدا عشرة كسو بسنا برشادة اللغة الإنجليزية عشر كان و conversation 29 أما عشر كي سقاليو لباتنات أدب فضلا هدي أد كحرنين أما أدن ركمنين هبلا أكاديمي فضلا سبسكرايب داس يادو هشو عشرة دي قدن بيي أنسو قلنو عشر كان وحاوة هلا يلا بقف مركا عشر كأيان قد قلينا ayaa hadalka bilaabay wuxuu yiri hey what is your name hey waxa dhahnay waa salaanta luqada ingiriisiga what is your name waxa la yiraahdaa marka waa maxay magacaada my name is Lee magacayga waxa la yiraahdaa Lee what is your name ayuu yiri marka what is your name my name is Elisa or Elisa marka magacayga waxa la yiraahdaa Elisa ayaa la yiraahdaa It's nice to meet you. Waa wanaagsan tahay inaan kula kulmo. Yes, it's nice to meet you too. Sidoo kale waa wanaagsan tahay inaan kula kulmo. Ereyga too waa sidoo kale. Nice to meet you or it is nice to meet you waxa la yiraahdaa marka maaragtay la kulanto wacan wanaagsan ama la kulan wanaagsan. ama it is nice waa wanaagsan tahay to meet you in aad kula kulmo intaba waa lagu fasiri karaa are you new student too ma waxa tahay arday student waxa la yiraahdaa marka arday cusub miyaa tahay sidoo kale ayuu yiri marka are you a new student too ma waxa tahay arday cusub sidoo kale no maya I am a sophomore waxaan ahay marka sophomore waxa la yiraahdaa ardayga dhigta sanadka labaad ee jaamacadda no maya I am aniga a sophomore waxaan ahay arday dhigta sanadka labaad I take it waxaan u qaadanayaa you are inaad tahay a new student arday cusub inaad tahay ayaan u qaadanayaa yeah It's pretty exciting to be here. Waa ii farxad inaan halkan joogo ama inaan halkan ahaado. Yeah, it's pretty or pretty labadaba u dhawaaqi kartaa. Marka wuxuu yiri marka yeah, it's pretty exciting to be here. It's very exciting ayaa loola jeedaa marka it's very exciting to be here. Yani farxad aad ah ama waa farxad inaan halkan aan ahaado inaan halkan aan joogo ayaa loola jeedaa having a fun while it lasts waxa la yiri marka have a fun while it lasts waxa la yiri marka madadaalo wanaagsan ama madadaalo wacan maadaama ay ku tahay madadaaladii ugu dambeysay ama funkii baashaalkii ugu dambeeyay aad haysato maadaama ay tahay waayo waxa uu yiri the excitement wears off really quick the excitement farxadda wears off really quick farxadda waxa ay marka baaba'aysaa si dhaqso ah ayay farxaddaada marka ku baaba'aysaa ayaa la yiri marka labada qof wada hadlaysa meesha waa wiil ku cusub jaamacadda iyo wiil 2 sano dhiganaya jaamacadda marka ama gabar aan iraade gabar iyo wiil ayaa wada hadlaya gabar 2 sano dhiganaysay iyo wiil ku cusub meesha ayaa wada hadlaya marka wiilkii waxa uu yiri it is pretty exciting to be here aad ay farxad u tahay inaan halkan ahaado ama halka inaan joogo markaas ayaa loogu jawaabay have a fun while it lasts waxa la yiri marka madadaalo wanaagsan bacdama ay tahay tii kugu dambeysay bacdama ay tahay madadaaladii ama baashaalkii kugu dambeeyay ereyga fun ayaa la yiraahdaa marka while-na waxa way dabadeed ama kadib ama isla markaa oo ay tahay intaba waa qaabab kala duwan ayaa loo fasiri karaa marka waxa la yiri baashaal wanaagsan maadaama ay tahay tii kugu dambeysay the excitement wears off ereyga wears off waxa la yiraahdaa baaba'ista ama wax marka ay ka baaba'ayaan ayaa la yiraahdaa marka the excitement farxadda ama farxaddan aad faraxsan tahay wears off really quick si dhaqso leh ayay marka oo xaqiiqa ayay kaaga baaba'aysaa marka especially gaar ahaan ayaa la yiri after you see markaad adiga aad aragto how much homework you get
waxa la yiri waxa farxadan ay kaaga baaba'aysaa kadib markii aad aragto anta su'aalood ee lagu diri doono how much homework waxa lahaa su'aalaha guriga lagu soo shaqeeyo ee dadka jaamacadaha iyo iskuulada iyo meelaha waxbarashada dhan loogu soo diro ee guriga loogu shaqeynayo marka waxa la yiri farxadan aad sheegayso waxay kaaga baaba'aysaa especially gaar ahaan ayaa la yiri marka after you see kadib markii aad aragto ay kaaga baaba'aysaa khaasatan kadib markii aad aragto how much homework you get anta marka homework ama inta su'aalood ee guriga lagu diri doono kadib markii aad aragto ama aad hesho ayaa marka farxadan ka baabi'i doonta ayay waxa la sii weydiiyay marka where are you from halkeed ka soo jeedaa marka where are you from halkeed ka soo jeedaa ama halkeed u dhalatay ama wadankee ka soo jeedaa anta baa lagu fasiri karaa I'm from Korea wuxuu yiri marka Korea ayaan ka soo jeedaa wadanka Korea la yiraahdo my parents waalidiinteeda wanted me to go to an American university waalidiinteeda ayaa waxay ila dooneen my parents waalidiinteeda wanted to me ayaa waxay ila dooneen marka to go to an American university inaan aado jaamacad Mareykanka so sidaa darteed I came here sidaa darteed halkaan ayaan imid eegi marka hadalkii waa sii socdaa weli casharka uu dheer yahay marka wuxuu yiri marka I have never been to Korea gabadhii waxay tiri marka I have never been to Korea weligay ma aanan tagin I've been to Japan before Japan ayaan hadda ka hor tagay I have been waxaan ahaa marka to Japan before qof tagay Japan ayaan ahaa hadda ka hor but laakiin never Korea laakiin Korea weligay ma aanan tagin marka but never Korea inta waxa loola jeedaa weligay Korea ma aanan tagin why you were in Japan marka waxa la yiri marka Japan maxaad u ahayd ama maxaad u tagtay marka my father abahayga thought wuxuu u maleynayay it could be a good experience to take vacation to different country marka abahayga eriga thought waxa way think ayaa loola jeedaa hadda laakiin waa past my father abahayga thought wuxuu u maleynayay marka it could be inay noqon doonto a good experience khibrad wanaagsan inay noqon doonto to take in la qaato vacation socdaal ama dalxiis safar dalxiis in lagu qaato to different country marka wadamo kala duwan marka to different marka countries ayaa halkaas marka wuxuu yiri marka waxay tiri marka aabahayga wuxuu u maleynayay inay tahay marka khibrad wanaagsan inay tahay in vacation waxa la yiraahdaa marka safarka dalxiiska in lagu qaato wadamo kala duwan ayuu u maleynayay he is so into learning about different cultures wuxuu aad ugu helaa marka he is so into learning about different cultures wuxuu aad ugu helaa marka barashada dhaqamada kala duwan he is so hadda waxa loola jeedaa asiga wuxuu aad u xiiseynayaa loola jeedaa hadda he is so into learning wuxuu aad u xiiseynayaa asiga about different learning about different cultures marka cultures waxa la yiraahdaa waa dhaqamo kala duwan marka different cultures waxa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan ayuu aad u jecel yahay marka inuu barto marka that's pretty cool or that's pretty cool laba dhihi karta that arinta marka is waxa way pretty cool waa arin marka wanaagsan waa marka ama very perfect oo kale loo jeedo marka I thought it would have been more fun if I went without my parents marka waxay tiri waxaan u malayn lahaa inay ahaan lahayd marka it could have been more fun inay madadaalo wanaagsan ay noqon lahayd haddii marka waxay tiri if haddii I went halkaan aan aadi lahaa without my parents waalidiinteeda la'aantooda haddii aan halkaan aadi lahaa waxaan u malaynayaa inay noqon lahayd madadaalo wanaagsan marka waxay leedahay marka waalidiinteeda la'aantooda haddii aan safri lahaa waxay noqon lahayd kasii marka baashal wanaagsan well hagaag if you ever wanted to visit Korea haddii marka mar aad doonaysid inaad aadid Korea I would be happy waan ku faraxsanaan lahaa
to show you around inaan kusoo tuso ama kugu soo wareejiyo magaalada. I would be happy waan ku faraxsanaan lahaa to show you around inaan meelo aan kusoo tuso ama meelo magaalada ka mid ah inaan kusoo tuso aan ku faraxsanaan lahaa ayuu leeyahay marka. Thanks mahadsanid for the over waxa la yiraahdaa bandhiga ama waxa qofka u bandhigtid ee leeyahay marka for over. Thanks for the over waxay tiri marka waad ku mahadsantahay overkaada ama waxaabahan aad isoo bandhigtay maadaama uu dhahay dalxiis macnaha meel badan ayaan ku geen lahaa. waxay tiri marka thanks for the over waxay tiri waad ku mahadsantahay bandhigaada. I will keep that in mind maskaxda ayaan ku hayn doonaa. I will keep that in mind maskaxda ayaan ku hayn doonaa. ayaa la yiri marka waa hadal qabsi. marka the professor macalinka jaamacadda is coming ayaa imaanaya. We will talk more after class waxa wada hadli doonaa marka fasalka kadib ayaa in badan wada hadli doonaa marka we will talk more after class fasalka kadib ayaan wada hadli doonaa in badan. Okay ayaa la yiri marka halkaana waxaan ku haysanaa eriyo badan sida uma badna laakiin waa qaar ka mid ah eriyaashii ku jiray casharka. sophomore waxa la yiraahdaa eriga sophomore waxa la yiraahdaa marka ardayga sanadka labaad dhigta jaamacadda ama college-ka ayaa la yiraahdaa marka sophomore. student waxa la yiraahdaa marka student waxa la yiraahdaa ardayga ayaa la yiraahdaa jaamacadda. sidoo kale kan dugsiga sare waa loo isticmaali karaa laakiin wixii dugsi sare iyo jaamacad ama college ka baxsan looma isticmaali karo. dugsi hoose iyo dhexe looma isticmaali karo student. exciting eriga waxa la yiraahdaa farxad ayaa la yiraahdaa ama farxan qofka markuu uu faraxsan yahay ama farxad uu dareemayona waa loo isticmaali karaa. cultures waxaan dhahnay waa dhaqmo hadda waa jamac. culture markay tahay waa dhaqan laakiin hadda waa dhaqmo kala duwan. casharka waxay ugu jirtay different cultures dhaqmo kala duwan ayay ugu jirtay. vacation waxa dhahnay waa dalxiis ama qofka markii uu safar dalxiis u aadayo. homework waxa dhahnay waa su'aalaha la iskugu diro guriga ee ardayda loo diro si ay ugu soo shaqeeyaan. marka casharkii halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa ku saabsanaa laba qof wada hadlaysa gaar ahaan college-ka iyo casharada la xiriira college-ka ee jaamacadaha ardayda. marka halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inta casharka ku kulmi doono waxaan idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.